maanta waxaan muuqaalkan wax kaga baran doonaa 10 macdan ama gemstoneska ee ugu qaalisan caalamka. Tanzanite wuxuu ka mid yahay dhagaxyada naadirka ah. Wuxuu leeyahay midab buluug xigeen ah. Blue violet sucite waa erey cilmiyeedka dhagaxan, balse wuxuu ku magac dheer yahay Tanzanite, kaasoo loogu magac daray wadanka ugu badan ee laga helo oo ah Tanzania. Markii ugu horeysay dhagaxan waxaa helay caalimka lagu magacaabo Manuel de Souza sanadkii 1967. inta badan dhagaxan waxaa laga helaa Mererani Foothills ee buurta Kilimanjaro, Tanzania. dhagaxan naadirka ah halkiisa karat waxaa lagu kala gataa lacag dhan $600 ilaa $1,000. karat waa halbeeg lagu cabiro dhagaxyada qaaliga ah. halkii karat wuxuu u dhigmaa 0.2 gram. Tavite waa dhagax aad iyo aad naadir u ah. markii ugu horeysay dhagaxan waxaa helay geologist u dhashay dalka Austria oo lagu magacaabo Count Charles Richard Taff. sanadka markuu ahaa 1945 mar uu kala soocayay spinal gemstones, isagoo markaa ku sugnaa dukaan dhagaxaanta lagu iibiyo oo ku yaalo magaalada Dublin ee xarunta dalka Ireland. inta badan dhagaxan waxaa laga helaa wadamada Sri Lanka iyo Tanzania. dhagaxan qiimihiisu wuxuu gaaraa $2,500 halkiisa karat. Black opal waa dhagax caan ah oo leh midabyo fara badan, waxaase ugu naadirsan dhagax loo yaqaano black opal, kaasoo midabyada faraha badan uu leeyahay looga soo qaatay midabka madowga, maadaama uu midabkaasi si weyn uga soo dhex muuqan karaan midabyada kale. dhagaxan waxaa inta badan laga helaa wadanka Australia, sidaas darteed waxaa loogu magac daray dhagaxa qaranka ee dalkaasi. dhagaxan qiimihiisu wuxuu ku bilowdaa $2,300 halkiisa karat, halka kuwa tayadooda sareysa uu gaaro qiimo dhan ilaa $10,000 halkiisa karat. Benitoite dhagaxan oo ka mid ah dhagaxyada naadirka ah, midabkiisu waa blue. wuxuu shabahaa dhanka midabka dhagaxa loo yaqaano blue sapphire. dhagaxan waxaa loogu magac daray webiga San Benito ee dhexmara gobolka California, dalka Mareykanka. sidoo kale dhagaxan waxaa laga helaa wadamada Japan, Australia iyo Romania. dhagaxan qiimihiisu wuxuu gaaraa $4,000 halkiisa karat. Red beryl dhagaxan waxaa laga helaa buuraha Wahwah ee ku yaalo gobolka Utah ee dalka Mareykanka. buurahaasoo ah goobta kaliya ee laga helo noocyada dhagaxan ugu tayada sareeya. waxaa kaloo laga helaa dhagaxan New Mexico iyo Mexico, balse dhagaxyada laga helo ayaa ah kuwa aad u yar yihiin xajmigooda, kaasoo ka hor istaagaysa in la qoro ama la nashqadeeyo. dhagaxan qiimihiisu wuxuu gaaraa lacag dhan $10,000 halkiisa karat. Alexandrite dhagaxan waxaa loogu magac daray caalim u dhashay dalka Ruushka oo lagu magacaabo Tsar Alexandrite kii labaad. astaan wuxuu u leeyahay dhagaxan in uu qaato midabyo kala duwan, taasoo ku muteystay
in uu helo naaneysta ah Emerald by Day, Ruby by Night. Inkastoo markii ugu horeysay 1830kii laga helay buuraha Ural ee dalka Ruushka, balse xiliyadan dambe ayaa laga helay qodaalo laga sameeyay dalka Brazil, Sri Lanka iyo bariga Afrika. Waxaa dhagaxan lagu qiimeeyaa lacag dhan $12,000 halkii sakarad. Jadeite, dhagaxan oo ka mid ah dhagaxyada aadka u naadirka ah, waxaa la helaa isagoo leh heerarka kala duwan ee midabka cagaarka ah. Jadeite waxa uu ka mid yahay dhagaxyada ilaa qarniyadii hore aadka loo qiimeyn jiray. Dhagaxan wuxuu u badan yahay wadanka Myanmar, waxaana uu qiimihiisu gaaraa ilaa $30,000 halkii sakarad. Musgravite, dhagaxan wuxuu si muuqata safka hore kaga jiraa dhagaxyada aadka u naadirka ah. Waxaa la helay 1967, waxaana laga helay koonfurta dalka Australia. Sidoo kale wadamada Greenland, Sri Lanka, Madagascar iyo Tanzania ayaa laga helaa dhagaxan. Tiradaasi hoos uma dhigaysa naadirnimada dhagaxan. Qiimihiisu wuxuu gaaraa ilaa $35,000 halkii sakarad. Pianite, dhagaxan midabkiisu waa orange brown. Markiisii ugu horeysay waxaa laga helay dalka Myanmar 1950kii. Laba nooc oo ka mid ah dhagaxan ayaa ilaa hadda la ogyahay jiritaankooda, taasi oo ka dhigaysa dhagaxan mid aad naadir u ah. Maadaama uu dhagaxani aad u qaalisan yahay, fursadaha looga heli karo suuqyada lagu kala gato dhagaxaanta ayaa ah mid aad iyo aad u yar. Waxaa lagu qiyaasaa lacag gaaraysa $60,000 halkii sakarad. Pink Star Diamond ayaa ah dhagaxa ugu qaalisan uguna naadirsan caalamka. Dhagaxan ayaa gaaraya halkii sakarad qiimo dhan $1,208,000. Ma u malaynaysaa in macaadintan laga heli karo wadankeena Soomaaliya? Fadlan ra'yigaaga ku dhiibo qaybta commentiga.